masaladii xalay ee ku saabsanayd heesta aynu khulaasayno kadibna aynu ka soconno. masalada heesta la yidhaahdo ama waxaan maansada la yidhaahdo waa magac guud oo shay bannaan iyo mid aan bannaanaynba ay soo hoos galaan. culammada muslimiintu khaasatan salafu saalix quruntii khayrka badnayd culummadiisii saddex bay u qaybiyaan waxaan maansada ama heesta la yidhaahdo: mid bannaan iyo midaan bannaanayn kaan bannaanayn bay laba qaybood ka dhigaan, marka saddex waaxood buu noqonaya. qaybta koobaad waa taxale inuu ka hadalay oo waxaan loo yaqaano maansa hawleedku waa shay bannaan. maansa hawleed baa la yidhaahdaa marka beerta la falayo xoogow tixi bay qaadaan oy isku dhiirageliyaan oo isku caraabiyaan dadka beerta falaya. dadka guryaha dhisayoo kale xoogow maansay qaadaan oy markaa doonhayaan inay isku caraabiyaan oo ka howlgalaan. ninka cidda iyo geela waraabsanaya sidaasoo kale, gabadha masagada tumanaysa, ninka hawl qabanaya, qolyaha mujaahidiinta ah markay iscaraabinayaan xoogo bay qac ka siiyaan. maansadaas loo yaqaana maansa hawleedka jiijiid badan ma laha, laxan ma laha, miisig ma laha, xumaan dadka looguma yeedhayo, waa shay iska bannaan cinda ahlilcilm. xalay waxaynu soo marray kalxudaa'i waannasbi, taas marka waxaa loo yaqaanaa hina bannaan. ruuxa bini aadamkeen fitradiisa lagu ciyaarinna wuu kala garanayaa waxa u dhexeeya maansa hawleed iyo heesta la yaqaanay caadigii hebel waa fannaan, waa heesaale leh. ninka hadda geela shubanaya 2 sac laga yaaba ama intuu duhurkii fadhiisto ceelkiisu intaa u shubahayo in gabalka ugu dhaco intaana maansa uu tirinhayo la odhan maayo waa heesaa. geel jiro miskiin oo geeliisa waraabsanayn baa loo arkaa. ninkii saaka aroortii ku kalahay beere intaa falhayay ee gabalka ugu dhacay intaana heesahaya caraabinaya dadka beerta jebinaya looma arko inuu yahay heesaa iyo fannaan. marka waxa maansa hawleedka loo yaqaan ee carabna u yaqaaneen xudaa'ul acraab ama khinaa'ul acraab la odhan jiray, salafkuna ka hadleen, waa bannaaya hadduu ka badbaado edabdarro in layskugu yeedho ama axad bini aadan lagu dulmo lagu caayo. nooca labaad isagu waa xaaraan, laban uga qaybsamaa. waa khinaha loo yaqaano, waa maansada heesta la yidhaahdo ee leh laxanka, ee leh isjejebinta, ee leh iswalaaqidda iyo edabdarradaad garanaysaa. isqaawin warkeeba jooji. khinaha noocaasa isagu waa xaaraan biijmaaci culamaa'i lumma. waxa hadda heesta u taqaanaan iyo fannaaniinta aad tidhaahdaan iyo hebel waa fannaan waa heesaa aad tidhahdaan hawshay ku howlan yihiin waa xaaraan, waana masale ijmaaciya, khilaafna ma laha. wadaad dambo asagu iska soo rucleeyoo xiiqsan oo hawl meel kaga go-an tahay ha ku lugi. alimaam cumar bn cabdilcasiis yaa ijmaaca guuriyey, imaam maalik baa soo guuriyey, shaafici baa guuriyey, axmed baa guuriyey qabla an yukhlaqa ibnu xasm iyo khayrkii intaan la abuurin, walaa ibnu طaahir alqaysaraani suufi almulxid aan la abuurin, ayaa a'immatu ahli اlcilmi guuriyeen oo uu ka mid yahay alkhaliifatu اraashid kow ka yahay maalik imaam ahli sunna, shaafici oo la yaqaano culummada ugu adag inay ijmac guuriyaan inuu yahay oo weliba ku naqdiya dadka ijmaaca guuriya ku naqdiya. axmed baa guuriyey 31 caalim baa ijmac soo guuriyey, 31 caalim baa ijmac soo guuriyey. marka wadaad dambe warkiisu iska yahay khalad galay ama ijtihaadoo gafay laguma lugo oo masaladaa marka masale muran lama ah. heesta laxan kale ee isjejebinta leh ee edabdarrada wadata ee nin weyn dhaqankii aan ahayn ee lagu yaqaana dadka fasaqada ah caanka u noqotay heestaas waa hees xaaraan, waa in bannaanka laga maro.
ninka sameeyana waa faasiq markhaati ma galo kii kaag dhawaa wixii laga shaqaystana waa xaaraan laguma xajiyi karo bal waa laguna cadaab mudanaya qaybta labaad waa qaybta loo yaqaan oo qaybta xaaraanta ka mid ah haddii si guud loo fiirino waa qaybta saddexaad alghinaa asuufi ka la yidhaahdo wey alghinaa asuufi heesta iyo maansada iyo xatrada iyo nasrada ay qaadaan qolyaha dariiqooyinka ah ee durbaanaha garaacda iyo kuwan hadda alxaq balaaza loo fadhiyi la'yahay tu alifka taadka wax ka dhacama suma taqaanaa middaa iyaduna waa xaaraan weliba ta hore iyadaa ka liidata ninka fanaanka muqaniga ah ee heesaaga ah inuu xataa khaldan yahay wuu isog yahay wuxuu inaysan fiicinayn waa isog yahay naftaa naga baratay waa balwad waa ku soo korray xoogo mushaaru ka raadinaya laakiin kuwan aafadoodu waxaa weeye shay macsiyo ah bay ilaahay ugu dhowaanayaan qurbo iyo diin iyo cibaado iyo alla dhawaashay u arkaan walidaalika bacdu culamaa ilumma waxay gaadhsiiyeen ninka nasrada iyo xatarada iyo ghinaaga suufiga ah qurbo iyo alla dhawaasho u haysta waa gaal bay yidhaahdeen wadaad xanafi ah kitaab ka qoray oo hataa aan shuqul ku lahayn salafiye iyo sunniye midnaba oo maaturiidi ah oo ku takfiiriyey qurطib abulcabaas saaxib ulmufhim wuu ku dhowaaday kashfu lqinac kitaabkiisa la yidhaahdo fii masalati الsamac inuu takfiiriye xaama xawla takfiirihim laakiin muusan tasriixinin abu xaamid alghazali nin walaalkii ah oo axmed ibn moxamed alghazali la odhan jiray kitaab buu qoro asagu suufi ah wuxuu leeyahay ninkii yidhahda xadradu ma bannaana waa gaal oo fiirsaada ninna wuxuu ku yidhi ninka bannaystee diin ka dhigta waa gaal asna wuxuu yidhi ninkii yac yidhaahda waa gaal waxaan marka wax dambe lagu luga'ay shaaficidu markay hadda ka hadlayaan fiqiga shaaficiga kutubta sharxayaan manhaajka iyo kutubta fiqiga shaaficida ninka ugu hadal xun ee ugu liita waa ghazali imaamka aragtayna cadiimka ah ee usuulka imtixaanka ku aaya meel walba soo taabtay markuu baabkan marayo waa adcafu nnaasi kalaaman fi hada albaab lianna maxaa yahay isagaa ku fidnaysnaa isagaa ku fidnaysa xaafid ibn xajar muxuu yidhi wadaadku wuxuu ku fidnaysan yahay fatwo lagama weydiiyo xaggee buu ka qaatay xadiidkii markuu sharxayay kadaba abu sanaabil ibnu backig xadiidkaa ka fiiriya fatxubaariga wadaad asagoo ribada cuna sheekhu bal ribada ka war haddaad tidhahda muxuu ku leehay laa ba'sa laa ba'sa noloshii baa gashay laa ba'as mid asagu haweenka meerxad ku meheriyo meelahaas ka burdhaqlaysta haddaad tidhahda masaafo iyo islaan aan wey lahayn sheekhu bal ka warran muxuu ku leeyahay masale khilaafi laakiin anigu waa sameeyey iska wada ku leehay wadaadku wuxuu ku aafaysan yahay waa la iska ilaaliyaa allaahuma inaad daliil cad iyo war cad aad ku aragto haddee markaa nas u taageero mooyeen masaa'ilka ijtihaadka wadaadku wuxuu ku aafaysan yahay waa laga fogaadaa masaladan marka alghinaa asuufi ee qurbe iyo alow dhawaasho laga dhigtay ee laxanka leh ee durbaanka leh ee marqaanka leh lagu judboodee taqaanaan ee waaga annagu aan xatrayn jiray aan ismoodi jiray haddaan dhici weynay in ilaahay agtiisa waxba aanna ku lahayn wadaad haddaba nool oon geeri aanan ku maqal iyo habeenka jumcaha ah iyo habeenka arbacadaba wuxuu qasab nagaga dhig inaan xatrayno haddii kale aroortaas kitaab idiin akhrin maayo carabiyadu noo akhrin jiray naxwadii sarfigu noo akhrinay habeenka jamcaha waa inaan xatrayna saan u daryaamayno gabdhuhu mashxarada hayaan ee darmuusku iyo foox isu dabamarhayo waaga agtiisa baan ku kala dareeraynaa hadday saa aysan dhicin sabtida soo socota cashir ma jiro habeenka arbacadana sidaasoo kale ahayd ninka habeenka marka la xataraynhayo ee baasha la wado aan marqaaminan dhicinan judboonin muxuu arkaa munaafiq faasiq nin qalbigiisu ingegan yahay qaasiyatan quluubuhum mujrim buu isu arkaa ilaa waagi dambe anuu ma arag laakiin nin arkay baa iga sheekeeyey wuxuu idhi wadaad baa markay naftu qabatay oo uu judboon waayey iyo maalinka habeenkii dambe iyadoo xatarayna istuuray kashkaashkii lagu fadhiyey iyo meeshii la fadhiyey geed weynoo dogoba lagu celiyey kashkaashka iyo bartaa la helay dhiiggii baa faninay cabaad buu afka furtay isbitaal loola cararay hadduu judbaysan iyo marqaansay waxa ku dhacay muusan gartayna moogta waa nin isdanaasacayo bal istuuroo iska dhig nin marqaansan
marka midka asagu xaraamnimo waxa u dheer waa xaraan diin laga dhigtay بعض أهل العلم لا يحكوا تكفيريا با كهوري فنانادو يا فسقادو قادانا ودقن فسقو مجرمين اسنوا دين لا لبدا نوع با علماء اجماع بي سو غوريين انو حاران yahay كوسي ديران ما كتب بدن با laga qoray carakawa معاصرين كتب بدن bay ka qoreen salaf كتب بدن bay ka qoreen xagga fuqahada waa weyn ninka ugu horeeyay masalada ka hadlay kitaabka qoray Shaafici way Abu Tayyib al-Tabari أبو إسحاق الشيرازي شيخيسي نينكي الزمن كيسي اللي يديه حلقة يسوى حافريسن جري 500 فقيه من شتى المذاهب في كل جمعة وحولها حلقة للمناظرة واحد انت أمن زنوب ننتدعي وعلمي كوب حل ديراضي وحر كعي عركواء واقد مركو الدقوبة سقاشن دور بكل انتي oo toddobaatan meelaha soo gaaray ee wuxuu wixii munaadara waxaan u wakiishay ardayga Abu Ishaq al-Shirazi ninkaas hawsha qaban jiray barka wadaadka kitaabku ka qor waa madbuuc risaalada akhriya isaga iskale Shaafiiciyadu raga ugu cadcad ee masaladan tafsiiliyay ee fariisiyay way waa dhaqan diin la'aan ya faasiqnimo way dhaantadu xagee galaysaa dhaantadu inay ilay xagee gali وقيبتي حاران تايد بإجماع المسلمين دين لآن يقال لموي ولبا إن ليد هذا نينك أن لا إيمان المسلم معه والدين لآن يقال لمو إن لقو يد هذا نينك دانتين واي ووعل وهذا ويد باميد وقادين وودادا يا ميشن كتغي ساقا إيشكي جيجيجو تغي وحوري إنا إليو باشان آفادي أمد دقن كغقلميسي جوج ودين لان ما بنانا دقنك جوج بكو يدي وحوري كاله يا تاي حوري سومالي بان ور سومالي مره ويات ogaadeen baan ahay ogaadeenna waa tay dhaantana waa didi wicil baatay garac ogaadeen ma tid buuri wanin dhan sheekhu saa ku leeyahay asaga baa iga sheekeeyo ii sheegay marka aafadu halkaasay gaadhay sidii macsiyada ahaa ee dambiga ahaa ee kabiirada ahaa ee bacdu ahli cilmi ba hadii qurba laga dhigtay kugu takfiirinayeen ee wuxuu leeyahay ninkii la iman waaya ama inkira qoonsado waa garac nasabkiisa duran yahay oo qadfi baasha li'aan waxa ka bilaabanaya asagii baa dadkii qadfay wuxuu ku arkay inaad ahayn ba aadan reerkaba u dhalanin balaya aad labada qaybood way yaan la isku khaldin hees hawleed maansa hawleed oo lagu qabsado oo si jabin lahayn oo laxan lahayn oo allaheed alla iyo balaayadan imtixaanka ah ee muusigada wadata ee laxanka wadata aafada wadata yaan la isku qasin laba kala baabo kala duwan way hawshaasi marka intaas ayaan kaga tagi lahaa kutubtu way badan yihiin raggiina dhalinyarada hal kitaab akhriya araka waa way kitaabka ila roon xagga jamciga iyo xagga baxthiga iyo shubahaadka ka jawaabidooda iyo naqliga ijmaaca iyo taxriirinta masaladaba wadaadkan Nidyab ibn Sa'd al-Ghamidi la yiraahdo kitaabkiisa way الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف وكتاب شن بقوله بيج أن كبرني بل ولا بقول يزيد أفر بقول يزيد بيج أخرية وكتاب دقيقة علماء الحل يسنوا له وهنا أي تقريدية أنت أخرية ابن باز بكمله مركا الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف بل جديع بكون نقديي وحكون نقدية قرضاوي وحكون نقدية الدكتور سالم الثقفي يعني ونقد علمه ولي إذا بيسان علمنا كل سنة تقريبا إلى 8 رسالة لقوا قروان هيا ووين لكن كي أسقى إلى في عام حق مادة أصولي جاي النقد انت انكو بعضنا دكتور عبد الله عبد الله بن موسى رمضان كتاب كيسة الرد على الجذع والقرضاوي في مسألة الغناء والمعازف آخرية أصغنا ومجلة كوسن وإلى لحب غلو بيجة مركا مسألة يعني لقوا خلدامي haddii ay baashi heesta ahayd haweenba soo galaan ama aflagaadi ay soo gasho ama xumaan dadka loogu yeedhayay iyo zina iyo tacriid iyo fawaaxish iyo cishq iyo beenbeen wixii lagu sheegay baqtiga ay ummadda u horseedayay aafada iyo dhaqan xumada ay meesha timaadana muranba ma laha inay xaaraan tahay muranba taasi ma laha marka inta aan ku gaabiyo kitaabka akhriya markaad kitaabka dhammaysan hadday wax shubaa soo hadho markaasaynu iskugu imanaynaa waman axaalaka faqad
أسندك